الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلهي baa mahad iska leh أولا وآخرا ciwaanka kelimada kooban ee aan waqtiga kooban ku qaadan doono haddii Ilaahay yidhaahdo waxaa weeyaan الرasuul raxmaة lilcaalamiin. ciwaankaas waxaa gundhigu ah aayadda qur-aanka ah ee Allah tabaaraka wa tacaala uu qur-aanka ku sheegay nebigana calayhi salaatu wasalaam uu ku ammaanayo wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. raxmadda ereygan alraxmaan iyo alraxiim iyo raxma awsaanta kala duwan ee kelimadani ay leedahay ee qur-aanka ku soo arooray bay badan yihiin. maalan alraxmaan oo kale sifadaas ilaahay ee magacaas ilaahay qur-aanka markaad akhrido ama aad raadiso ilaa iyo 64 jeer meelahaas ayuu ku soo arooray. alraxiim oo kale ilaa 175 jeer meelahaas ayuu ku soo arooray. waxaa qur-aanka ku soo arooray ilaahay inuu yahay arxamu raaximiin, inuu allah yahay tabaaraka wa tacaala khayru raaximiin, arxamu raaximiin iyo khayru raaximiin. waxaa qur-aanka ku soo arooray ilaahay raxmaddiisu inay wax walba oo makhluuqaadkiisa ka mid ah ay u waasic tahay. wasicat raxmatii kulla shay. waxaa qur-aanka ku soo arooray raxmadda ilaahay inay dadka muxsiniinta ah u dhowdahay, inay dadka muxsiniinta ah ay u dhowdahay. muxsiniintana waxaa loola jeedaa waa jamcu muxsin. muxsinkuna waa alladii yacbud allaha kaannahu yaraah fain lam yakun yaraahu faina allaha yaraahu huwa. xadiiskii ixsaanka ka hadlayay markaan fasiro. ilaahay raxmaddiisu waa waasic, dadka wan wanaagsanna way u dhowdahay. rabbanaa wasicta kulla shayin raxmatan wa cilma. ilaahay cilmigiis iyo raxmaddiis intuba makhluuqaadkiisa way ka ballaadhan yihiin, wayna ka waasacsan yihiin. ilaahay waa arxamu raaximiin, ilaahay waa khayru raaximiin. alraxmaan suurad dhan oo qur-aanka ka mid ah, suurad dhan oo kalaamka ilaahay ka mid ah baa waxaa loo bixiyey alraxmaan. sababtoo magacaasaa lagu bilaabay. alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu albayaan alshamsu waalqamaru bixusbaan wاnnajmu wاshajaru yasjudaan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط فلا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام وهكذا. intaa shay ee makhluuqaadkii ugu waaweynaa oo dhan ee ilaahay u abuuray ee bani aadamku ugu nicmeeyey baa laga daba keenay
الرحمن مركي سورة لو بالله إلى صدن يكو جير كوبي صدن جير أي سورة كسر الله بتا فبأي آلاء ربكما تكذبان صدن يكو جير ميلها سبا سورة كلي الوسع العلنية آلاء والنعماء آلاء وحالو جيدا نعموين كإله إلهي قرآن كو كهدلي إنسان كأبورستي سو كهدلي إن علم لبري سيدي هذا كلمة الشيخ علم بني آدم كإن لبري بو كهدلي أبورستي سماوات كإي أرلدا إي قرحدا إي ضيحة إي فايدوين كإليهين إي كوا كلا أو تربدا بسورة لو شيء سيدي أصدرت باللو سوء العلنية فبأي آلاء ربكما تكذبان رحمة إلهي وواسع قرآنك أسود جينا ورحمة سيقول إني رحمة كجرته أي إلهي شيء ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هل كاس آيات بعد دينك إلهي وردن لغو سوكو بني آدم كيو حنكو دارنا يابو إلى الله إنا ندين كيني وندين سود جني بكتابنا ندين سود جني فصلناه أن كلا دقني أن عديني ولبا بعلم أقون أنكو كلا دقني أنكو عدين إلهي وعليم وحكيم وخبير وحول باء بني آدم بهنا آخرية الدون بل وعدي ليس كمان قياسني الله السماوات كإيا أرلضا إيا بني آدم كان بأبوري يا سودجي مركزا وحالي وهدى وهنون ورحمة وأنا رحمة لقوم يؤمنون وحال ليسكر دعين أولا الرمين oon la qirin inuu faa'iido leeyahay laguma faa'iido adigu markaad wax cunaysid ama aad wax cabbaysid waxaad rumaysan tahay inay oon iyo gaajo iyo haraad kaa goynayaan waadna kala taqaanaa waxa oonka kaa goynaya iyo waxa gaajada kaa goynaya iyo waxa haddaad cabtid ama aad cuntid ku dhibaya waa kala taqaanaa su'aalihii kelimada sheekha ku jiray jazaahu allahu khayran oo dhan baa sharxaya waxaan ka hadlayn hanuun baa ku jira la yidhi qur-aanka aqoon baa ku jirtaa le raxmad baa ku jirtaa le laakiin yay ugu jirtaa waxaasoo dhan waa qofkii rumeeyey haddii allah tabaaraka wa tacaala uu qur-aankan soo dejiyey uu yahay arxamu raaximiin qur-aanka laftiisuna uu yahay raxmad socota nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyeyna la yidhi waxaan kuu soo dirnay waa raxmad keliya inaad caalamiinta u noqoto alcaalam waxaa la yidhaahdaa maa siwa alkhaaliq khaaliq iyo makhluuq un weeyaan caalamiintu waxa weeyaan makhluuqaadka wixii makhluuqaadahoo dhan inaad raxmad u hoggaamisid ood dhexdooda khayr dhigto ood dhexdooda raxmad dhigto ood dhexdooda wanaag dhigtid oo dhexdooda isjacayl dhigtid qalbigoodu isku soo dumaan
hal waddo ay qaadaan, hal cod ay yeeshaan, hal dowlad ay yeeshaan, hal madax ay yeeshaan. wixii aan mu'min ahayn ay ka sarreeyaan, sidaasaan kuu soo dirnay. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. qof qaatay waxa uu nebigu la yimid calayhi salaatu wasalaam oon cisoobayn ma jiro. qof qaatay oon sharaf yeelanayn ma jiro. xadiis saxiixa baa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay oo saxiix ah oo cumar ibni khadaab radia allahu tacaala canhu laga warinayo: ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. ilmo yar markii xataa nacfiga adduunka laga fiiriyo, wiil yar oo 7 jir ah oo saxaabadii ka mid ahaa oo ka hadlayay qur-aanka fadligiisa iyo sharafta qur-aanku uu leeyahay, aakhiriya adduunba barakada uu wato, yaa wuxuu yidhi markii dadka qabaa'ilka dariska nala ah ama aniguba dadka aan ka dhashay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ay xagga madiine u aadayaan ama xagga maka markuu joogay ay aadayeen ee ayna soo maraan, yaa waxaan ka dhagaysan jiray buu yidhi wixii ay ka soo maqleen nebiga calayhi salaatu wasalaam ee qur-aanka ah. waagii dambe aabbahay baa nebiga aaday oo soo arkay oo soo rumeeyey oo ka soo laabtay. markuu ka soo laabtay ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam la soo dardaarmayay, yaa dardaaranka waxaa ka mid ahaa markii salaada la gaadho axadkiin ha addimo. xadiiska macruufkee naqaano: qofka idinku qur-aan badanna imaam ha idiin noqdo. markii aabbahay uu yimid reerkanagii oo qoyskii iyo xaafaddii laga fiiriyey qofka ugu qur-aan badan, anigoo 7 jiraan noqday buu yidhi qofka ugu qur-aan badan. dadkii meesha mari jiray oo aabbahay aan u raaci jiray markuu waraysanayo baan ka xifdiyey. waxaanu xifdinaya xataa markaa ma rumaysnay, ilmo yarna uu ahaa. hadda laakiin aabbihii baa diinka qaatay. kabacdi dardaarankii nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qofka idinku qur-aan badan ha idin tukiyo. waa la fiiriyey, anaa ugu qur-aan batay buu yidhi. anigaa imaam layga dhig buu yidhi. marka qur-aanku sharaf buu xambaarsan yahay. hadda waa adiga arkay magaalooyinka tartan qur-aan baa laga qabtaa. dadkii waaweynaa oo jooga yaa ilmo yar aan weli qaan gaadhin yaa 30 juz ku tartamaya. boqolaal arday baa tartamaya, 30 juz ku tartamaya oo loo soo labisay, oo dadka waaweyn ka xaraga badan markay qur-aan ku tartamayaan. dadka tartanka qabanayana waxyaabo qaaliya oo baabuurtu ay ka mid yihiin, oo dahabku ka mid yahay, oo lacagtu ay ka mid tahay baa tartanka meesha lagu tartamaya yaalla. wiilkaa yar aan qaan gaadhin ama gabadhaas aan qaan gaadhin baa baabuur 2,000 oo jooga ama dahab 2,000 oo jooga soo qaadanaysa. aakhiriya adduunba waa raxmad qur-aanku. nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa raxmad. qur-aanka waxaa ku soo arooray: laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum. soo qur-aanka mid maaha. labada aayadood ee ugu dambeeya suuratu tawba: laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum walaqad ji'naakum bikitaabin. soo maaha. laqad baa ka horraysa.
halkaana laqad baa ugu horaysa. laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum, rasuul idinka idinka mid oo bani aadama idiin soo dirnay. casiizun calayhi maa canidtum. canidtum waxaa laga wadaa maa yadurukum, canatakum, dhibkiinna ay culays ku tahay oy ku adag tahay waxa idin dhibaya idinka, waxa idin dhibaya. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلهي وحي القرآن كمان ننكو سود الجنين إن لقد بمته. ولقد يسرنا القرآن للذكر. إلهي مركوحي عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. aadna ugu dadaalaya hanuunkiinna waxa idin khayr ah, waxa idin sharaf ah, waxa idin wanaagsan, waxaad cizi ku yeelanaysaan, waxaad khayrkiin kaga sara maraysaan, waxaad adduunkaa ku maamuli kartaan, waxaad ku quwoobaysaan ood awood ku yeelanaysaan, waxa qalbigiinna isu keeni kara oo idin midayn kara, wax walba oo bani aadam meel degan uu jeclaan lahaa inuu sharaf ku yeesho ku dadaalaya. bilmu'miniina ra'uufun raxiim. dadka mu'miniinta ana ra'uufun raxiim waa nabiga calayhi salaatu wasalaam. fi suurati aali cimraan فبما رحمة من الله لنت له. سوساس ماهي فبما رحمة من الله لنت له. يا إلهي رحمة أوكوغلي أوكوغو صدري آياتها صدام بالاسكو فسري أمرك قرآن كلا جو. إلهي رحمة أوكوغلي حقي سكتمي qur-aankan uu kugu soo dejiyey uu wato, qofka mu'minka ana loogu talagalay inuu ka faa'iidaysto. sababtaas yaad ugu jilicday ood ugu dabacday dadka mu'miniinta. walow kunta faddan ghaliida alqalbi lanfadduu min xawlik. haddii sidaada lagu abuuray aad ahaan lahayd oo ilaahay uusan ku kabi lahayn, ilaahay qalbigaaga toosin lahayn. ila waad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam maalmihii koobaad oo loo waxyoonayay ka hor intaan la gaadhinba waxyiga oo rasuulba laga dhigin, isagoon baqaan gaadhinba, markii baadiyaha loo diray si uu luuqadda carabiga ugu soo takhasuso baadiyaha la geeyey. waad xasuustaan isagoo yarbaa intuu jibriil u yimid oo dhulka maxaanku idhaahdaa la seexiyey ayaa la jeexay qalbigiisa, markaasaa la dhaqay. markii loo markii maxaanku idhaha waxyiga lagu soo dejiyey oo la rabay in samaawaadka la geeyana, qalbigiisa mar labaad baa la nadiifiyey. ilaahay marka wuxuu leeyahay naxariista ilaahay yaad ugu jelicday oo dabeecaddaadiina toosiyey. innaka la calaa khuluqin cadiim aad ku mutaysatay ee si kale ma ah. marka walaalayaal, dad muslimiinaan nahay, waxaan rumaysannahay allaha arxamu raaximiinka. soma rumaysan? waxaan rumaysannahay qur-aankaas raxmadda iyo hanuunka iyo cilmiga uu ka buuxay. waxaan rumaysannahay rasuulkaas calayhi salaatu wasalaam loo soo diray inuu raxmadda qaybiyo. maxaa dhexdeenna marka see dhexdeenna raxmad looga waayaya? waxaa looga waayayaa oo keliya
sida aan wax u rumaysanna oo diinka aan u haysanno inay wax ka qaldan yihiin. sida un baa raxmadda laynooga waayi karaa. laba xadiis oo kooban oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu raxmadda kaga hadlay, axaadiis tiro badan oo boqolaal gaadhaysa buu raxmadda kaga hadlay, laakiin waxaan ku soo koobaynaa xadiis saxiix ah, bukhaari iyo muslim ay wariyeen, cumar ibni khataab laga wariyey radia allahu tacaala canh. baa cumar wuxuu leeyahay, qadima calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bisabyi. nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa loo keenay oo duulaan maqnaa, oo gaalo ku maqnaa, ciidan maqnaa, oo diinka inay faafiyaan duulaan ugu maqnaa, oo soo laabtay, oo soo qhaniimaystay, oo markay gaaladii ka reeyeen xoolahoodii iyo dadkoodiiba soo qaatay, baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u soo galay oo magaaladii ugu yimi. wuu fiirinayay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam, faida imra'atun min asabyi. markaasaa wuxuu arkay qof haweena oo dadkii la soo qabsaday ka mid ah oo wax raadinaysa, indhahay taagaysaa, waxbay raadinaysaa, waxbaa ka maqan. waa la ogaan doonaa waxa ka maqan, waa la ogaan doonaa. idaa wajadat sabiyan min asabyi akhadathu faalsaqathu bibatniha wa ardacathu. mar alla markay aragto ilmo yar, waxay aragtay ilmo yar oo dadkii la soo qafaashay ka mid ah oo la hayo, way qaadatay, calooshay ku dhajisatay, naaskeedii bay nuujisay. waa ilmo ay waxa way rabto inay nuujiso, way raadinaysa. nebigu waa fiirinaya calayhi salaatu wasalaam, saxaabaduna way fiirinayeen. cumar wuxuu leeyahay, faqaala lana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nebigaa wuxuu nagu yidhi, atarawna haadihi almar'ata, war ma u malaynaysaan oo ma idinla tahay gabadhaan ilmaha sidaa ugu dhegtay ee intay caloosha ku dhajisatay naaskeedii afka u gelisay ee ku dheggan, waa ilmaheedii, ma u malaynaysaanoo suurtagal ma idinla tahay taarixatan waladahaa fi nnaar, inay dab ku ridayso ma idinla tahay? adiga maxay kula tahay qof haweena oo ilmo ay dhashay laabta ku haysata oo nuujinaysa, dab ku rid inay yeelaysa ma kula tahay? maya. maxaa u diidaya? raxmadda. markaasay waxay yidhahaan, laa wallaahi wahiya taqdiru calaa anlaa tatraxahu, iyadoo awooddo oon lagu khasbaynin inay naar ku ridi maysa yidhaah. meeshuu uga jeeday tusaalaha ayuu u sheegay. marka wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha. lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha. wuxuu ku dhaartay, ilaahay baan ku dhaartay wy, ilaahay baa addoommadiisa uga naxariis badan naxariista ay gabadhani ilmaheeda u naxariisanayso. xadiiska kale ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen, abu hurayra laga wariyey, nebigaan ka maqlay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo leh, jacala allaahu araxmata 100 juz'in,
ilaahay markuu raxmadda abuuray 100 qaybood buu ka dhigay 100 juz buu ka dhigay فأمسك عنده 99 جزءا أكتيس وحور دقي وآخر أكيدي سغاشني سغال جزء أو كمدة بقولكي جزء رحمة الله قيبي إمسا صاري هل وأنزل في الأرض جزءا واحدا أرلذا وحوسو دجي هل جزء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. هذا الكلام اللي في الصدر هل كجزء إلهي أرلذ وكسو دجي إلى واجي أدونك الأبوري إلى أنت أدونك اللابيو هل كجزء ورحمة إلهي يا مخلوقات كأدركتين ودن يسوون حريصنا وقبل هذا الماء بقى كويس الشيء أي كميته مركز وحيدي حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها إلى أدركتين neefka xoolaha isagu farasku tusaale u soo qaat markii ilmuhu uu nuugayo xoolaha waad aragteen geela iyo lo'da iyo adhiga iyo wax kastoo dadla nool ah iyo kuwa duurjoogta ilmahooda yar markuu nuugayo miska maxay sameeyaan durkiyaan qaarkood markuu ilmuhu nuugayo hurd way gamaan say ugu raaxaysanayaan ilmahan inuu nuugo qaarkood way ilmeeyaan markay ogaadeen inuu waxa u yimid ee nuugayo ilmahoodii yahay way ilmeeyaan markaasay ilmuhuna nuugayaan iyagoo ilmeynay isma dhaqaajinayo neefka xoolaha inta ilmahaasi nuugay waa inaga de waxa weeye bani aadam baan nahay oo aqli baan leenahay iyagana raxmad baa la geliyay halka juz ee raxmadda ah يا واجي أدونك الله أبوري إلى أدونك لقى قاضنا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها ما أنت إذا عايزه هل كان رحمة باقي بسمة يسوع سيدا داركتين نقنيسا هذه والد كعداد كالركتان ويسوتي ما دان سايس ولا جيسان وارد رحمة دا ساكت سجاشني سجالك كليا لوجنا حريصنا ذاتك مؤمنين تابع آخر لوجنا حريصنا waxaa nasiib daran oo cid ka nasiib daran aysan jirin waxaa khasaaro qaba oo cid ka khasaaro badan aysan jirin 99 juz ee aakhiro loo dibdhigay oo mid walba oo 99 ka mid ah uu ka badan yahay ka waasacsan yahay waagi adduunka la abuuray ilaa inta uu dhammaanayo wixii raxmad la isticmaalay mid kamida oo 99 ka mid ay ka ballaaran tahay adiga oo muslim ah oo adduunka muslimnimo ay kugu soo gaartay qalbi adaygaaga naxariis darradaada diin yaraantaada inaad kaga qadid raxmadda inta leek ilaahay naga maqadiyo jannada ilaahay samaawaadka iyo arlada ayaa ugu ballaaran wax aynu naqaano sooma wax aynu naqaano oo magaciisa aan garanayno bidhaantiisana aynu u jeedno oo samada iyo arlada ka ballaaran miyaa jira carshigaa ka weyn kursigaa ka weyn laakiin labadooda maynaan araga qayb baan ku rumaynaynaa soo maha laakiin waxyaabaha makhluuqaadka ilaahay uu abuuray ee magacoodana aan garanayno bidhaantoodana aan garanayno maxaa ugu weyn arlada iyo samaawaadka ugu weyn soo maha ilaahay markuu jannada ballarkeeda tilmaamay muxuu ku qiimeeyey uu barbar dhigay samaawaadka iyo arlada
وجنة عرضها السماوات والأرض جنوينك أرلدان أدر كيسان وحي بني آدم مشرقي مغرب هدو جيرو هدو دينتو دولك لجليني مخلوقات ككلا إلهي بد يبرك النول ترى قف قرنا يا وسنجرين أرلدان يكون نولين أرلدا أنت قادة يدل كاس يسماوات كاس تدور السماء أنت صورن أول إسكود دربي جنة كبلارنتا جنة أنت لك ميل آد كجشد إن ذويد خسارة كبدل ميجر ما هي كنتم سناد نوليد أفرتن سناد نوليد لحدن سناد نوليد تدواتن سناد نوليد سديتن سناد نوليد بقول سناد نوليد بقول كبا هداد تاجر هيد ود مليونير هيد بقول كبا هداد بقر هيد بقول كبا هداد مدحوينه هيد بقول كبا هداد وحوي نوع كلا هيد ود لمتين oo inta sanaad noolayd ay ku goyn weyda meel yar oo jannada kamid ah khasaare ka weyn ma jiro khasaare ka weyn ma jiro ilaahina wuxuu u naxariistaa adoomada inta naxariisata ayuu u naxariistaa الرحمة ولا ليال qalbigeena naxariisaan ku beerno hadduu waqtigu ii saamaxayo قصة يربان قدر لها لكن وسع وقتي وقفا إذا سنة نتكرنه انت سنكو جوجنيا إن شاء الله بارك الله فيكم وجزيتم خيرا صلى الله على نبينا محمد